النبي حير عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة قفكي هذا الأوضاع وقدم بيساهي مر الله مركو دمر رب التوحيد كهدي وقدم بيسوي هذا لا إله إلا الله دبتنا النفط كبح هذا شككم مجرين وقفك سألوا الجنة ياي نبي حير عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله dadkiina markay dhimanayaan u dardaar u laqima kelimada la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah maxaa yeelay waa zaadka qofka meydka xataa yalqalla ilaa oo rabbul izza kala kulmayo zaadkiisii bay u tahay qof kastana uma fududo inuu kelmadda markuu dhiman rabo yiraahdo la ilaaha muhammadur rasuulullah kaliya waxay u fududahay qofka markuu adduunka joogay ku digrin jiray kelimadaasi iyo baaqiyat saalixiinka bay maanta u fududahay mid kamid dadka muuminiinta ah baa mar alla markuu geeriyoodo ee naftu ka baxdo ee la duugo baa waxa uu imaanaya munkar iyo nakiir ayagoo doonay inay su'aalihi weydiiyaan markaas bay waxay leeyihiin intay soo kacshaan man rabbuk wa man nabiyuk rabbigaa waa kuma nabigaadana waa kuma intoosan su'aalihii ka aysan dhammaystirin buu addoonkii mar alla markuu saan u soo fadhiisto buu wuxuu u maleynayaa inuu hurdo ka soo kacay markaas buu wuxuu leeyahay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah waayo markuu adduunka joogay baa caado u ahaan jirtay mar alla markuu soo kacay tawxiidka buu ku soo kacaa hadduu sooxanay adkaarta buu ku sooxdaa hadduu shaqaysanay adkaartii soo wataa hadduu wax cunay adkaar buu wataa sidii adduunka markuu joogay oo noolay ay caado u ahaan jirtay bay haddana caado u noqotay markaasuu mar alla markuu soo fadhiistay buu tawxiidka ku dhawaaqayaa markaas bay malaa'igtii wuxuu ku leeyihiin nim rawda min riyaadil janna war beeraha janna ka mid iska seexo laa su'aala calayka su'aal dambo lagu weydiinaya ma jirto su'aasha dambo weydiinayaan maxay tahay intii ugu badneed mar alla markuu soo kaca buu tawxiidkii ku dhawaaqay axad tawxiidkii ku dhawaaqana munkar iyo nakiir wax dhib ma yeeli karaan halka ummadihii kalena qubuurihii lagu ciqaabayo dadkii salaada ka tegi jiray adkaartii ka tegi jiray ee ilaahay xusi jirin ee soomi jirin ba halkaas baa lagu ciqaabayaa qofka intuu adduunka jooga buu khiyaar leeyahay in uu ka shaqeysto sidii u noqon lahayd qabrigiisa beeraha janna ka mid ah ama inuu waqtigiisa iska lumiyo maalayacni iyo fadhi ku dirir iyo xan iyo isku dir iyo waxaan ilaa raali keena oo sameeyo godkiisana ay noqoto xufur min xufur naar wal ciyaadu billah bay u noqonaysaa qofka shaqaysanaya laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ba ka miisaan badan waxa adduunka yaallo dhan waxaa la wariyaa maalinta qiyaamo ilaahay baa wuxuu wici doonaa mid ka ummadii nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam markaas buu ilaahay wuxuu leeyahay kaale addoonkii waa lagu xisaabinayaa mar alla markii xisaabtii bilaabato baa waxaa la soo bixinayaa 99 waraaqadood oo halkii waraaq ee la egtahay qof inta bannaan istaago ilaa ishiisa ay ku dhamaato intay la ekaan karto waraaq la eg baa loo keenayaa oo halkii total ay tahay 99 waraaqadood intaasoo dhan buuxda la soo bixinayaa oo wax xasanaad ku jirin dhammaan wax meesha ku qoran waa wada dambi waa wada xumaan oo sameyn jiray iyo afxumo ku dhawaaqi jiray bay dhammaantood isugu wada jiraan markaas buu addoonkii argagaxaya wuu wareerayaa markaas baa ilaahay wuxuu leeyahay yaa cabdi miyaa lagu dulmiyey markaas wuxuu leeyahay ma yaa rab wuxuu leeyahay malaa'igta miyaa kuu qortay dambi aadan lahayn miyaa dusha kaa saareen markaas wuxuu leeyahay ma yaa rab ilaahay baa wuxuu leeyahay ma xasana aad samaysay miyaa dad kale loo qoran adiga lagu qorin markaas wuxuu leeyahay ma yaa rab markaas leeyahay hadda wax aad kala dood ka qabto miyaa jiro wax oo dood qaba ma leh wax la sheegana ma leh looyar kuu doodayana ma jirto imtixaankan adduunka aan joogno qofka haddii iskuulka ku dhacahay hal sano buu dib u laaban karaa wuu soo ceshan karaa laakiin xisaabtaas maalinta qiyaama wax soo noqoshaa ma leh mar haddaa dhacdo waa dhacdo horun baa naar u galaysaa haddaad baasidna waa baasa jannada u baa galaysaa markaasuu addoonkii wareeray waxa keliya sugi doono isleeyahay malaa'igtii baa lagu wici doonaa si ay naarta kuu geyso mar alla markuu quus taagay baa waxa leeyahay ilaahay baa la hadlay wuxuu leeyahay inna laka indana amaana annaga agteena amaana baa noo ka taalo ونحن لا تضيع الأمانات عندنا أكتننا أمانة كم ضيعنت مكاسبه وحول صبحنا يا وراغير يكو قرنت لا إله إلا الله محمد رسول الله
addoonkiiba wuxuu leeyahay rabbi meeshan 99 waraaqadooda weyninka ka badbatay baa taallo wada dunuub ah waraaq yar oo hal kelimad ku qoran tahay maxay meesha ka taraysaa markaas baa la miisaamay ilaahay wuxuu leeyahay la miisaamo markii la miisaamo baa waxaa qaalib noqonaysa laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah